wafdi ballaaran oo hogaaminayo wasiirka wasaaradda madaxtooyada Somaliland oo qayb ka yahay wasiiru dawlaha wasaaradda maaliyadda Somaliland ayaa maanta waxay kulan ballaaran la yeesheen boqolaal dadweyne ah oo isku jira cuqaal waxgarad aqoonyahan dhalinyaro guud ahaan bareer Togdheer iyo sidoo kale maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada iyaguna goob joogayaal ka ahaa munaasabadan kulankan oo nuxurkiisu ahaa xog waraysi ku wajahan xaaladda guud ee gobolka ayaa waxa uu go'oreyn halkaas ka hadlay odayaal iyo cuqaal reer Togdheer waxaana ay guud ahaanba ka mideysnaayeen in gobolka Togdheer uu xilligan marayo halkii ugu fiicnay marka laga hadlayo waxqabadka iyo horumarka ka socda gobolka Togdheer iyo sidoo kale xaaladda ammaan ee gobolka Togdheer ay ku dheeraadeen odayadani barasaabka gobolka Togdheer Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi iyo maayir ku-xigeenka magaalada Burco Maxamed Maxamed Xoday ayaa iyaguna tilmaamay in gobolka Togdheer xaaladiisa guud ay nabdoon tahay geesta kalena isdhexgalka iyo midnimada Togdheerna ay tahay mid xilligan soo ifbaxday sida ay hadalka u dhigeen inkastoo Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi Xamarji oo ah barasaabka gobolka Togdheer kuna cusub gobolkan uu ka amaan sheegtay guud ahaanba habdhaqanka dadka reer Togdheer iyo sida ay ugu qaabileen gobolkan agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Somaliland oo isla madasha ka hadlay ayaa tilmaamay in gobolka Togdheer uu xilligan marayo marxaladii ugu fiicneyd ee dhinaca horumarka iyo isdhexgalka bulshada gabagabadii munaasabadan oo hadalka la wareegeen wasiiru dawlaha wasaaradda maaliyadda iyo waliba wasiirka madaxtooyada Somaliland ayaa waxay halkaasi ku soo bandhigeen ujeedada safarkoodan iyagoo si gaarana u naqdiyay mashaariicda ka socota gobolka Togdheer gaar ahaan mashruuca saliid ee baaritaankiisa ay shirkaduhu ka wadaan gobolka Togdheer cid alla cidii Somaliland maal ka shaqeyn karta ama bisool ha noqoto ama macdan ha noqoto ama wax kale ha noqoto dowladda uu madaxweynaha Kenya hogaamiyo Mudane Axmed Maxamed Silaayo waxay ku talagashay in ay soo dhaweyso in alla cid dalka wax geli karta waxaan leenahay haddii walaalayaal saliidda ayada halkan wallahu subhanahu wa ta'ala inaga siiyay saliidda soo baxday waddankeenu uu horumarayo insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inuu horumaro dhaqaale helo untanaado haddii soo waxba laga waayo inuu ku hogaaminayo gaari laga karaystay inuu ku hogaaminayo laba wiil ama dhowr wiil oo qofku shaqeeyay inuu ku hogaaminayo danta qaranka iyo danta caamka ay wada deeqaysaa waxba kuma filna qof gaari waxba kuma filna qof mushaarki waxa lagu filan oo inuu wada deeqaya dhamaanteen wixii dan caam ah wala yeelan waxa weyn waxa yar u dhaafi oo inaga qiimo badan haddii gaari laga kiraysan waayo oo aad kalifto gaarigaaga dartii inaad maslaxadii caamka ahayd ba ku gurguriso oo kaga hortimaado waxweeyaan waxaan adna faa'iido ku lahayn qarankana dhibaato ku ah lagama ogolo bulshada iyo dawladda toona lagama ogolo qofna inuu dantiisa iyo maslaxadiisa yar kooban uu u burburiyo danta caamka waxleenahay marraba ka tanaasulmayno ilaalinta nabadgelyada iyo horumarinta dalka iyo bulshadaba kulankan oo ahaa qada sharafeeda ayaa waxyaabihii lagu soo hadal qaaday oo dhami waxay ahaayeen kuwa ay madaxda dawladda iyo dadka reer Togdheer ba ay si gaara iskula afkarteen waa Cabdi Sattar Cabdilaahi Cali telefishinka qaranka Somaliland Burco.